maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay Villa Soomaaliya inay ka dambeyso dacaayada ka dhanra madaxda qaybta ka ah shirka golaha wadatashiga qaranka ee ka socda magaalada Muqdisho. agaasimaha xiriirka dadweynaha iyo madaxtooyada ee maamulka Jubbaland Maxamed Xasan Xiisa oo eedeyn u jeediyay madaxtooyada qaranka isagoo sheegay in mas'uuliyiinta Villa Soomaaliya ay lacag ku bixiyeen arintani. madaxweyne ma waxaan jirta rajo aad weli ka qabto ergooyinka aad soo dirayso inay halka keenaan aragti kala duwan jirta iyadoo agaasimayaasii warfaafinta iyo xafiisyadii ay lacag ku bixiyaan cayda iyo dacaayadaha madaxda aad ku asuubtay shirka madasha ayuu yiri agaasima Maxamed Xiisa. tan ayaa imaanaysa iyadoo aysan weli wax natiijo ah ka soo bixin shirka Muqdisho ugu socdo madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada una matala galay maalintiisii shanaad. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la soo warinaya inuu intaani ku adkeysanayay in xanaanka doorashooyinka qof iyo cod aanu suurtagal ahayn in laga qabto Soomaaliya iyadoo aan heshiis laga soo qayb galin Puntland iyo Khartoum State. Axmed Madoobe ayaa fuqi diiday doorashada dadban isagoo soo jeediyay in sanadkani dowlad goboleedyada loo madax baneeyo doorashooyinka maadaama aanan horey looga heshiin muddo kororsina uu abuuri karo balalaase siyaasadeed. xujadani cusub ee Axmed Madoobe la yimid waxay soo aadaysaa iyadoo xalay maamulka KMG-ga ee SCC Khartoum uu codsaday in lagu azuumo shirarka golaha wadatashiga qaranka ee go'aanka lagu gaaray iyo arrimaha masriiga ee dalka. qorshaha doorashada qof iyo cod oo xambaarsan muddo kororsi hal sano ah oo dowlad goboleedyada loo sameynayo waxaa wadata dowladda federaalka waxaana ku qanacay Guudlaabe Laftagareen iyo Qorqor sida ay sheegayso xogtii ugu dambeysay. balse Axmed Madoobe oo aaminsan in doorashada qof iyo cod ah uu ka bixi karo ayaa diidan. Maxamuud Maxamed Axmed, telefishinka Xamuud Media TV, Muqdisho.